iyo ja iskoolkan baan ku bilaabay ilmanimadeydii cunugii aan ku dhalay cunuguu ku dhalanaya ayaa wax baranahaya intaas lagu shaqaynaya albaab laga goyn maynin baaki laga jaramaynin la weerari maynin la dhisi maynin maantana waxay maraysaa albaabadii in la ka gooyo dugsigii nala ka barakiciyo iskoolkii nala ka barakiciyo dhibaato naloo geysto waxaan ugu baaqahayaa wasiirka waxbarashada Faarax Macalin waxa ugu baaqahayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu soo farageliyo iskuulkaani wuxuu ku yaalaa meesha la yiraahdo Yaaqshiid xaafadda Tawfiiq ku yaalaa 35 ilaa 40 sano dhisan yahay intaas waxba looma dhibin dawladdu markay la wareegtay oo ay keento macallimiinta maxaa keenay barxadiisa in la gato meesha ma taqaanaaye ardada ma taqaana baabuurtooda ma taqaana lagu baakimaayay ardada laga qaado maxaa keenay dhibaatada wixii keenay dawladdu ha soo aragto iskuulkan waxa weeye ilmaheena noo dhigta meel kale ma taqaanaa awal caradina la ka burburiye burbur kale ha noo celinina muslim hadaa tihiin waxaanu cabasho ka nahay ninka kowda habeenimo dhagaxa ku dajiyay iskuulka iridiisii oo doonaya albaabkii isirida laga galay iskuulka inuu dego oo filooyin ka dhisto ninkaasaanu cabasho ka nahay waxaanu u sheegaynaa dawladda dhammaanteed guud inay arrintaas soo farageliyaan baaritaan ku sameeyaan dhagxanta uu dajiyay arkaan sida uu damacsan yahay arkaan waxaan ka cabanaynaa dadna soo weeraray oo waxaan ku leeyahay iskoolkeena meesha ciyaalka iskoolamada imtixaamada aadayaan baabuurta noogu kala fireynay basaska nooga qaadaysay ay rabaan inay dhistaan dhul la dhistana meeshan kuma yaalo waa iskoolka wahajahadiisi yaa dhul weyn oo bannaan oo maanta ay dhisa karaan meeshan ma lahana marka waxaan codsanaynaa oo dawladda cod dheer iyo cod gaaban baa ugu sheegaynaa inay naga qabtaan dadkan caada qaatayaasha naga dhisanaya barxadeena dawladdu waxay la dagaalaysaa oo basiibka in macnaha la cabiro oo la wadooyin kala toosiyo waxay dhahan iskuulka meeshan waxaan wadanay waxa noo yidhi dhahaya oo degmada ka socda oo dhahaya waxaan wadan sharci u leenahay iskuulka waxaan reebaynaa shan u reebaynaa haddii halkaa la degana waxaa baaba'aya bilicda iskuulka meesha ardayda baas markii eedka imtixaanka la qaaday form 4ka ay ka bixiyaan baabuurtii waa baakinkii iskuulka waa quruxdii iskuulka habeen walba guddiga ama community iskuulka waxay qabteen waardiyo ilaa 8 saac 9 saac ilaa salaada adinka iyo si macnaha ilaalinayo in lagu dajiyo lacag macnaha dhagax lagu soo dajiyo hadda kor waa lagu soo dajiyay waana xabadeeyeen dhagxaan iyo dhagaxtuur iyo waxaas nooga carareen calaamadii meeshana waa yaalaa dawladdu maadaama ay nooga imatay iskuulka anagoo maamula in aan macnaha mas'uul uga noqono awood naga badan ayaana soo riixaysa oo xagga degmada ka socota sidaa darteed wasaaradda waxbarashada gobolka banaadir gudoomiye taliyaheeda macallimahadii kana macnaha dalka asad iyo dhammaan nabadsuuda waxaan ka codsanaynaa in arrinta la soo farageliyo waliba wasaaradda waxbarashada iskuulka saaxadiisa hore balaaran weyn oo maxaan ku raadayay meeshii ardayda baabuurtu istaagi lahayd oo ardaydu iskugu imaan lahaayeen oo fayska iskuulka ah in waxaan loo sheegay la gadanayo oo dhagaxaan lagu soo dejistay oo raba in la dhisto ma fahanti marka anagu mucaarad ma nihin waxaan dad maxaafad ah oo iskuulkii Tawfiiq dhigtay aniga waxaan ardayda iskuulka ka baxday haddana ciyaalkayga dhigto guddiga iskuulkan ka tirsanahay waxaan aad iyo aad u boorinaynaa in nagala joojiyo barnaamijkan jid xirka ah ardayda hortooda la degaa dhagaxa lagu daadsaday maxaan ku iraahday mana ogin meesha ka socota arintaas laakiin waxa wanaagsanaa lahayd in arinka noocan iskuulka waxa lagu qaadaa imtixaan dugsi dhexe wasaaradda ku qaadato anagana waa nagala wada ardayna iyo ardayda waa noo imaadaa waa meesha beeskeeda ardaydu soo istaagi lahayn ma fahanti marka waxaan leenahay anagoo aan mucaarad ahayn oon dhibaato wadin arinka noocan ah wax iskuulka dan ugu jirto ardayda dan ugu jirto maaha waa in ay wasaaraddu arinkan soo fargelin ku soo samayso ilaa insha Allah